السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعيد السلام بدمان أصحابتي بقالقة. أصحابتي نقالقة سيتهين في عنتهين من نبات قبتين إلهي إذن كيسة وإذا رجينا خير بدن إيه فرحت ملول بأدون كجوكتان كسود وهذا channel كان دمر كصوماليات يدي رجلين كلا welcome معي الله هاي أمور تقير الله نوغا ديغا دمانتين هاي صاحبة قالقة سؤال شانا كجوابايو intay anfacdo allah u barakeeyo intay iskalena ilaahay qalbiga ha u dhayo aamiin yaa rabbi. Fadlan waxaa idinka codsanaa su-aalaha qaarkood waxay u baahan yihiin sabar badan ay u baahan yihiin, sidoo kalena waxay u baahan yihiin in la weydiiyo dad nooga aqoon badan. Fadlan saas ha la ogaado. Su-aalaha qaarkood ilaahay intuu naga garsiiyaan kaga qalbi diirsan karnaa meesha su-aalaha qaarkoodna loo baahan yahay dad inooga aqoon badan qaas ahaan culummo. Haye su-aashan waxa waaye walaalaha tabanayo haddii uu soojkii mar walba ka dhiganayo hadal ama uu ka dhiganayo hadal qabsi maa dhahaa ama hal qabsi waa amaleynaa kelmadda haddaan qaldi raali ahaada. hadduu xaajigaaga ama soojka gabadha soojkeeda ama gabar soojkeeda uu ka dhigto hal qabsi waa kala tegaynaa. maaragtay ma ii cuntamaysid, nolosha inaan kaaga baxaan rabaa, waa kaa guuraa, waa ku furay oo af cad ma dhahayo, laakiin wuu ku dulmeeraysanaa. Qofkii wuu ku dulmeeraysanaa waxa waaye arrimahaas khataray horta leeyihiin. khatarta ay leeyihiin waxa waaye ilaahay baa horta garanayo dadka qaar sidii af Soomaaliga u fahmaan ama hadalka macaan si u yaqaanaan iyo si kale. Gumaad markii la maqlo ama abuse ma aha qof ficil qaaday action ku dilay ama dhibaato cad ku geysta maaha. Sometimes waxaa jiro xagga emotionalka dhibaato ka dhacdo ama moral supportka dad dhaawacaa jiro. Marka ma la yaqaano waxa qof weyn oo qaangaar oo xaas noqday oo xaas leh oo la gumaatamayo lama yaqaano. Gabdhuhuba way sameeyaan ayagoo hal qabsi ka dhigto ifur iyo noloshaada marabi iyo wax lamida. Dadka qaar itixaanka qabsado ayaa saas u yaalo. Itixaanka siyaabo badan oo ku yimaada waa ogtihiin, sidaana waa si cad oo ku yimaado. Marka dabcan markuu ninkaada ama gabar ninkeeda markuu ku hanjabo waa kala tegaynaa, nolosha ma cuntamayso. Qofka baarim ku noqonayo xanaaq iyo aflagaado iyo hanjabaad iyo niyad jab, qofna baarim ku noqonayo. hadduu qof la rabo qalbigiisa wanaagsan si wanaaga qalbiga loo hantaa sax, si hanjabaad ma loo hanto. Marka yaas ceeb waaye ninkayga ii hanjaba inaan kala tagno qof ma la dhihi karo. hadalkaas afkaada markuu ka baxana ninkaaga ama gabadha ninkeeda dadka dhan muu cuntamaayo. qof kasta ninkaaga wuu liidaa, dhulkaana loo dhaweynaa. wixii doqonnimo kaga soo baxay ama aqli darro kaga soo baxay ama shaydaan uu ka soo saaray ama gumaad ay ka ahayd waa laga weynaan karaa, waa la isbedeli karaa. qofka fursada u baahan yahay sax. marka mar haddii la ogaado wadaadkaaga ama soojkaaga ama xaajigaaga inuu noocaas kuu bahdilo, qofna ma kula jeclo qofkaas inaa nolol la wadaagtid. mararka qaarna waxaa dhici karto adigoo u sabraayo, adigoo jacayl buuxa u qabo, meesha inay ilmo yaalaan, abaal inuu qofka hore kuu daartay, waqti dheer inaa wada nooleedeen, guurka lama dumiyo ama guur islaam lama dumiyo, meelo badan adoo nolosha ka xeerinayo, bahdilkaana aa ku jiri karin xal inay raadinaysid. soo see la yeelaa. horta haddii aad su-aal weydiin karto culummada, su-aalaha la weydii like maxaa arrinkan guurkan sidee waaye, guurki inuu jiray in kale, bal horta halkaas soo ogow. guurki waa jiraa laakiin karaahiyaa jirto haddii lagu dhaho adiga ducada badso. ani waxaan dhihi lahaa waxay hadallada qaarkood karaahiye waaye, laguma hadlo, akhlaaq maaha, sharaf ma laha, karaamo ma laha, wax laga faa'iidaa ma laha. waxa ku hoosgarayna ma naqaano, laakiin ilaahay waa qafuur raxiim. qofka dhibaatada lagu haayo rag iyo dumarba hadduu ducada badsado, ilaahay baryo, salaatuleyl dukado, sadaqa la baxo, ilaahay idankiisa qabow waa helaa.
ilaahay waa qafuur raxiim, wax ka qarsoon ma laha. laakiin marka guur inta lagu soo noqdo la hanjabo, la liido qof dhanoo nool, haddana laga tegaynin oo xayi inta loo furo aan laga tegaynin, ama xayi fur loo dhahayn, laakiin gumaadka uu iska jiro, lama ammaanin. taasna waxaa sababi karo dabcan shaydaanka, sidoo kalena qofkoo itixaaman oo hadalka macaan laga itixaamay, iyo nafsi meesha ka socdo. waa aragteen meeqaa guur inta ku rafaaday, nafsi baxeshay, meeqaa guur inta ku jasaartay, guur dambe ay ku hakadaan helin. marka nolosha itixaaman leh waa ilaahay ha noo qafiifiyo, laakiin wax la mari doono ilaahay baa garanayo. horaa waxaa loo yiri gacan la barkan doonana ilaahay baa og. marka aniga waxaan dhihi lahay su-aashan qofka dhiban, labada qofoodba, gabarna way dhibanaan kartaa, wiilkana waa dhibanaan karaa, ama ninka ragga waa dhibanaan karaa, qofka dumara waa dhibanaan kartaa. ilaahay waa kurbafeyde. hadba qofkii dhibaato ka tabanayo gudaha guurka, ilaahay bari, ilaahayna u noqo, ilaahay ii khafiifa itixaankaa maraysid. waayo adigoo garasho leh oo garaad leh oo sharaf iyo karaamo xaqu leh, maalin kasta bahdil ma lagu jiri karo. qofka u xilatay oo nolosha la wadaagaysa oo aad kuu bahdilayane runtii wax qalbiga u roon ma aha. marka su-aalaha qaarna waa ogahay saaxiib iyo walaal iyo ehel ma loola tegi karo, waayo inay kaaga sii daraanaa dhici karto, ay caroodaan, ay xanaaqaan, ay ninkii daba dhigtaan ama gabadhii daba dhigtaan. qofkaana waa qof itixaaman dabcan, waayo nolosha raaxadeeda lama helo iyo farxadeeda adoo caytama ama habaartama ama si uun bahdil u sameynayo, maba la helabo. qofkaas qof nolosha qanaacadeeda iyo quruxdeeda ka qatan waa. qof qaylinoo dagaalamaaba haddaa aragtid ama hanjabayo, nolosha macaankeeda ma haysto. soo maadaama uunan haysan, dadka uu dhibka ku hayana wuu sii salfanaa. marka su-aashan insha allah waxaan dhihi lahaa, haddaan ka jawaabo, qofka inuu duceyso way ku habboon tahay. haddii laga fursan waayo oo shaki iyo waswaas oo ku galay ama uu qofka galayna, culumaha la weydiiyo. waayo ibni aadanka markaa weydiisid su-aal hufan, jawaab hufan oo hagaagsan oo diiniyan ku salaysan, shareecadeeda ma hayno. dadka caadiga oo everyday iska ordayo oo averageka, dadka caadiga oo dadweynaha ah, su-aalaha qaarkood sida markuu tashuush kaa galo guur ma la weydiiyo. way kuu sheegi karaan waxyaabo aad u fara badan oo caadi qalbiga lagu diirsado, laakiin ka shakigii nikaaxi markuu meesha soo galo waxaa loo baahan yahay culumo weliba sii fahansan dhinaca shareecada guurka, sii fahansanaa la rabaa. adigana ducadaada lagama maarmaan waayo, haddaa nin raga tahay iyo haddaa qof dumara tahay, inaad ducaysatid oo guurkaagii waa wax itixaaman, nikaaxaagii itixaaman. qof kastoo nikaaxiisa itixaaman yahay, waa guurkaagii waxa itixaaman. marka inaa ilaahay barido, wixii khayr le ilaahay aa weydiisato, furiin iyo qabniin xalka kuu khayrka badan ilaahay uu ku marsiiyo. arrinkan kasoo fulayo qofkane, naftirkaaga iswarayso, xaggaaga cilad maa ka timid. qofka haddii la dhibo asna waa jawaaba. dadka qaarna jawaabtooda waa akhlaaq darro, waa hadallo karaahiye. soo waxa aa ku dhibaysid waxaa layidhi lama canaantaana caaniyo daadshe. adiga markaa dhib sameynaysid ama aniga haddaan dhib sameeyo ma raba dhibkayga inaan sheego. baliisa isfahano, fadlan ha la isfahmo. ani haddaan dhibaato ka shaqeeyo ma rabi dhibaatadeeda in la sheego iyo in la sharaysto iyo in lay dhaho dhibaa gashay, ma rabi. marka waxa waaye dhibkii kale layn sheegaa. soo qofkan waxaa laga yaabaa hadal macaan ma yaqaano, naftaadiyaa u diiday, korkaagiyaa u diiday, hadal macaanaa u diiday, la joogisaa diiday, waa dhidhibsatay, wejigaaga wuxuu ka akhrisaday inaadan u cuntamaynin. marka neerfiskii ayuu adigana kugula kordhacaa hanjabaad, waa aargoosasho dadban waa. wuxuu lagugu hanjabaana inaa baqato, inaa niyad jabto, inaa heerka isla joogtid iyo isla weyniga aa kasoo degtid. soo mararka qaarkood haddii la fiiriyo gudaha wixii khilaafa saasay u taalaa. yaas way jirtaa qof iska maskiina oo godkiisii biyo ugu galeen oo maskiinnimadii qofkaas laga faa'iidaysanaa, oo qofkan kale isla weyn iyo kibir iyo abuuska dhinacaas oo u qaaday iyo shaydaanka allah kasoo qabtee. laakiin mararka qaar waxaa jirta qofka ku dhibaayo inuu wax unkaaga cadgoosanayo. noloshana waa lagu wada jiraa, dhaqan wanaagsanna ma jiro. marka fadlan haddii waswaas qalbiga oo taabto, insha allah culimo raadso.
haddaa doonto magacaaga ha u sheegin, su-aasha weydii. ilaahay idankiisa waa kaaga jawaabayaan. si kheyr qabta allaha jawaabtaas kaaga dhigo. laakiin guur loo hanjabay ma wanaagsano, waa laga fiican yahay. xataa ku noolaashada ood weli guurkaas ku jirtid waa laga fiican yahay. hanjabaada si kasta ha noqoto, lacag maku siinayo iyo howl guri makula qabanayo iyo waxyaabo badan oo lagaaga hanjaba ama laguu diida ha noqoto, laakiin gudaha nikaaxa in marnaba loo dhaadhaco ma aha. waa qabniin saafiya ama furniin saafiya. waxa u dhexeeya waswaas ma fiicno. dadka waswaaskaas ku noolne cilado badanaa ku dhaco, madax xanuun, niyad jaab, kalsooni la-aan dhan kasta ka taabato. dadka qaar xataa ma rabaan inay ilmo dhalaan because maba ogaba inuu nikaaxa uu jiro iyo in kale. so taas waa dad badan ee u isticmaalaan birth control ee ilmaha iskaga ilaaliyaan, sababta oo ah ma hubta guurkii. qofkii xataa kalsooni ay ku tiraahdo guurkeenna ma jiraa ma laha, because dumar markaan nahay annaga wax ma qabnay, annagaa nala qabnaa, annagaa nala qabaa, annaga nala qaba markii waswaasna laga geliya guurkini, dan ilaahay baa og. wacdiyeyn badan oo ragga ku socoto iyo nikaaxaaga marnaba ha ku soo noqonin oo badan ma jirto. waa aragteen dadkii waa badan yihiin, allaha barakeeye. qof walbana gooniyo u rabaa in loola tacaalo, in loo caawiyo, in loo waaniyo, in loo aqli celiyo. ilaa iyo koriimada laga soo bilaabaa sharuudaha iyo sharciyada ku salaysan guurka. yaa u sheega wiil ilaa uu asiga guur soo gaaro oo wadana iska guursado, guur iyo dhinac laga maro iyadoon dadka qaar loo sheegin. rag iyo dumar aa la gaaraa, aa la galaa weliba guur. hadhow markuu khilaaf yimaadane waa kuu kaliga. kelmadaha afka ka dhaco oo dadka qaarkood xagga aflagaadada iyo caayada iyo hanjabaada ay usii fara dhuudhuuban yihiin, yaa kuu sheegaa qaladaadkeeda iyo khatarteeda. yaa kuu sheegaa waa cidne. waana wax akhlaaq darre ah, waana wax niyad jab ah, waana wax keeni kara kalsooni darro. xataa waa run kelmadaha qaarkood furiinaa ku dhaco. saas aawadeeda fadlan culimo raadsada. ragga hadday ku dhiban yihiin afcourse ninka gabadha iskama furi karto, laakiin inaad sii qabi kartid gabar mar walba ee fur ku dhehayso, dan waa inaad culimada weydiisaa. gabadhaas guurkeedu waasiya because qoftan waa qoftaad isla nagaadi laheedeen. ilaahay hadduu idin siinaa ilmo wada dhali laheedeen. hadduu ilaahay idin dayso aad isku aaqirsan laheed, isla gaboobi laheedeen. qof iyadoo yar oo dhalinyaro ah kuma rabo ku dhehayso, see ku haynaa cimrigeeda dhan. caafimaad maa ku jiro haayinta qof maalin ilaahay keena ifur ku dhehayso? sidees aad sawjad ugu noqon kartaa nin maalin kasta qaabkuu kuu furi lahaa ama inuu ku furaayo ku hanjabayo? khatarteeda leedahay. qof walboo damqanayo oo dhinacaas ka damqanayana qalbiga allah idiin dejiyo. aamin yaa rabbi. isku soo noqod kaloo wanaagsan. waa sheekadeenii kal iyo laab. hayahe waa inoo qaybaheena kale hadduu ilaahay yidhaah. su-aashaan waxaan kaga jawaabaa fadlan ha loo raadsado dad nooga sii khibrad badan dhinaca khilaafka qoyska. waa id salaamahay dhammaantiin. isku soo noqod kaloo wanaagsan. cafiya caafimaad. haddaa janalku cusubtiin noo soo dhawaada welcome. haddaa hore noola joogteen isku soo noqod kaloo wanaagsan. fadlan brograamka suulka kor ugu taaga. jazaakallah. salaamu calaykum.